kulo wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan naga daawanaysaan waa Stan Sports waxaanu booqasho ugu imanay xulka gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan ciyaaryahanada maqalka naafada ka ah oo diyaar garoobaya tartanka gobolada ee furmi doona maanta Sabtida tartankan ayay waajihi doonaan gobolka Awdal ciyaarta koobaad iyagoo ciyaarta labaadna waajihi doona gobolka Sool tababaraha gobolka Maroodi Jeex Xasan Hiibi ayaa noogu warbixiyay qaabka ay ugu diyaar garoobeen iyo rajada ay sugayaan tartankan iyadoo sanadkii dhow toole aanay ku guuleysteen gobolka Awdal sidoo kale waxa goobjoog ka ahaa xirada tababarka isku duwa ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Maroodi Jeex Nasriddin waxaana hadaladoodii ka mid ah sidan wuxuu yiri sanadkii hore koobka waxa qaaday Awdal ha qaadee waxa naga qaaday Rikooriyaal sanadkan si aad iyo aad baan u diyaar garownay sanadadii hore aan u diyaar garoobeen baan u diyaar garownay sanadkan waa si fiican oo maxay horumar leh baan u diyaar garownay wuxuu yiri insha Allah waxaan u baahanahay si aad weyn aan ugu baahanahay inaan insha Allah koobkaas aan ku guuleysano wuxuu yiri maxay sanadkii hore Boorama qaatay ha qaatay waxa naga qaatay maxay Rikooriyaal baan naga qaatay laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah sanadkan inaan insha Allah koob ka qaadno wuxuu yiri maxay sanadkii hore 3 gobol oo kaliya ay ahayd laakiin sanadkan waa 4 gobol waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda sportska aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa dhammaan wasaaradda ciyaaraha sportska iyo wasiirku aad buu mahadsan yahay wuxuu yiri maxay maayarku aad baa uu noo caawiyay garab istaag ballaaran uu noo sameeyay isagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa wuxuu yiri Sabtida waxa dhici doonta ciyaar aad u xiiso leh taasoo maxay isku beegan yihiin Awdal iyo maxay Hargeysa waxaan insha Allah rajaynaynaa inaan aad iyo aad u rajaynaa inaan ka badino insha Allah Awdal Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu bilownay diyaar garowgii koobka tartanka gobolada dadka maqalkooda xadidan yahay anigoo mas'uulkii ugu sareeyay gobolka waxaanu ku jirnaa diyaar garowgii aan ugu diyaar garoobaynay tartanka dhawaan ka furmi doona maalinta Sabtida ka furmi doona Hargeysa Stadium koobka waxa ka soo qayb gali doona 4 gobol waxaan rajaynayaa in xulkayga Maroodi Jeex uu guul ka soo hoyn doono magaciisa kor u qaadi doono waxaan ka rajaynayaa taageerayaasha xulka gobolka Maroodi Jeex inay taageeraan dhiiri galiyaan dhalinyarada maqalkooda xadidan yahay ee magaca gobolka ku ciyaaraysa